الرحمن الرحيم waxaa maanta taaganahay seejada codaynta degmada Buurtinle sheelaata kamay waa maalin weyn aad baa ugu faraxsanahay in dadku ay soo baxaan codkooda dhiibtaan muwaadinka xaqiisa uu helo aad baa u soo dhaweynana waana ku faraxsanahay runtii waxaan uga mahad celinaynaa intii ka soo shaqeysay oo ugu horeeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani guddiga doorashooyinka Tibag intoo dhan waa u mahad celinaynaa golayaasha deegaanka inaan si fiican u dooranaa rajaynaa xisbiga mudanna عود كسينا إن شاء الله. ما أنت ومالن كنتي آدي قيمة بدن ومالن غير بنتلان دمان قارهان غير بورتلا ودريران دولار شادية قفي عود أي مدة دير سوديين آدي بانكو فرح سنة يصرف كي بانكو شرنا لأن يرى يا أوديال يا أخيار يا دمان قيبها كلا دونا بشيء كمان تهي وديار سيهين عن كلا أوجهم بليان دمان قيبها كلا دوان أو أنت كشقي أو دولار بنتلان أو رئيسة يا قيبة يا تيبك كل آدي بالمسنتي. لا هي ما هذا إسكاله. inaanu maanta aanu codkayaga ku dooranayno xubnaha iyagii golaha deegaanka ee namatalaya degmada Buurtinle waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo Ilaahay ka soo waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isagu barnaamijkan inuu hirgalo waqti galiyay juhdi badan galiyay adkaysi badan galiyay iyadoo uu jiro cadow badan oo ka soo horjeeda oo Soomaalida ugu hareersan oo dhani aysan raali ka ahayn in Puntland maanta ay isdoorato oo hal qof iyo hal cod laga hirgeliyo madaxweyne waxaan leenahay Ilaahay ka ajasiyo waxaanu ka sugaynaa madaxweyne golaha baarlamaankana in sidaas oo kale aan u doorano ma doonayno in lagu noqdo habkii hore oo wax ku socon jireen 66 qof oo la sheegayo ama ayaga han noqdeen ama wax ka badan han noqdeen waxaanu doonaynaa in ayagana dooranno insha Allah aad baan ugu mahad celinayaa waxaan u hambalyeeynaa dhammaan ummadda reer Puntland ummadda Soomaaliyeed ee samaha jecel wanaaga jecel waxa weeye tusaale noo tahay waxaanu idin tusaynaa Soomaaliyeed in aynu doorasho hal qof iyo hal cod aynu qabsan karno haddaynu wadankeena aad baan soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay waana horumarka iyo waxqabadka dawladda Puntland marka waa soo dhaweynaya boqolkiiba soo dhaweynaya aad iyo aad boqolkiiba waa soo dhaweynaya waana ku faraxsanahay waana horumarka Soomaaliya iyo Puntland aad baan ugu faraxsanahay inaan codkayga maartay dhiibta maanta oo aan ku ciilbaxo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan ugu faraxsanahay maadaama maanta ay noo tahay 25 bisha in codkaynu dhiibanayn aad baan ugu faraxsanahay insha Allah haddana reer Buurtinle insha Allah وبركاته جيك أدارك ده مالن تاريخه إذا هندوه أدارك ده ما يمكن ديانة الموت إني أدارك ده قاعدن دورشة أتكن إذا نيبان وما سنتي شغلنا ماشي عد بحنتا آد إياد بيوحي وقفر حسيهين تذكرين عد كودا ديبتان وأوتشيدان لين بيكوتشران وأنا عضينيان آد إياد بيوحي وقفر حسيهين عد كودا ديبتان وحسبي أي ربان يورك أو عضينيان وعضيان مركا آدي آد بان ugu mahad celinayna dadka bismillah awlan ilaahay subhanahu wa ta'ala ya mahad iskale maanta waa subax ka duwan subaxyada kaleeto 25 bisha shanaad 2023 waa subax loo dareeray doorasho xalaal ah doorasho aan odayaal iyo cimaamad iyo reer hebel ku soo baxeen doorasho qofkii maanta xildhibaan u soo baxa uu ku soo baxayo ururka sincad ururka hebel ururka baalki marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa reer Puntland dhamaanteed guusha maanta noo soo hooyatay waa guul soo hooyatay reer Buurtinle khaasatan reer Puntland khaasatan degmadeeda reer Buurtinle u soo hooyatay marka insha Allah ta'ala muwaadiniinta dhamaantii waan salaamiyaa san u cibaadeysta Allah wa barakaatu waxaan ku sugannahay hoolka nasteexa waxaan halkaan ku codeynayaa doorashada aad baan ugu faraxsanahay Puntland ka dhacaysa qof iyo cod weeye aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa